marka ugu horeysa waan madaxweynaha iyo xubnahan golaha wasiirada iyo hay'adaha madaxa banaan madaxda ka intiina waan salaamayaa labaadkana waxaan leeyahay xilkaas waan idin hambalyeynaya ilaahayna ha idinku asturo marka dhaarta dastuuriga laba qodob baa la raacaa mid waa qodobka sheegaya muddada lagu dhaarinayo qodobka 94 oo sheegaya 94 faqradda saddexaad in 30 cusub gudahood lagu dhaarinayo maalinta golaha wakiiladu ansixiyaan qodobna waa qodobka dhaarta siiqada sheegaya qaabka loo dhaarinayo 129 marka kaasaynu raacaynaa qaabka siiqada aan akhriyo baa iga daba akhriyaysan hadii la yiraahdo waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga Somaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad inta aan xilka hayo billahi tawfiq marka ugu horeysa waan idin hambalyeynaya mas'uuliyadaas qabateen dadkii dheeraateen oo waa qofku markuu meel gaaro hambalyadiisu leeyahay mar labaadkana shaqo bulshadeenu shaqo u haynaa dadkeena baynu shaqaynaynaa marka ma sahlana marka ilaahay inuu ku asturo shaqada public iyo wadankeena waa shaqo aan sahlanayn waayo wadan yar oo dhaqaalihiisu yar yihiin oo duruuftiisu aan sahlanayn oo wadankeena inta badan ay bilaa amal u badan yihiin aynu ka shaqaynaa marka in ilaahay idin fududeeyo ayaan taana idin barinaa taw dambayse hadalka ma badan kaga baxayaan waxa weeyaan marka dhaartan macnaha ay u leedahay dastuurka qofkii inaanu shaqo galin marka baarlamaanka soo ansixiyo muddada dastuuriga ah ee sida ku meel gaarka u shaqeynaya mooyaane waxa loogu talagalay inuu qofku si kartidiisa iyo dhexdhexaadnimadiisa iyo waayo-aragnimadiisa si uga faa'iideeyo xilkasnimaha marka taas baan oranayaa waan aad baan ugu faraxsanahay inaan halkan imi waana idin hambalyeynaya marka intaas ku soo koobay aniguna waa mahadsantii xilkii dhaartana waa maanta gudateen saas ku dhawaad sharciyadii aad mas'uuliyadda ku qaadaysan qodobka ugu dambeeyay waana idin ducaynaya in hawsha Ilaahay ku asturo dad waaweyn mas'uuliyiin tihiin ka warwari maayo in hawsha qabarsaan waayo bulshada marka hore walaad ka soo xulay aad iyo aadna waxaan ugu rajaynayaa insha Allah in xilkaasi wacan soo bixi doontaan dhammaanteen